xalay waxa la galay marxalad kale oo dagaal waxa la bartilmaameedsaday goobo dhowr ah khaliijka Iiraan ilaa Israa'iil ayaa gubanaysa waa berigii maanta ilaa xalay waxa dareemaysaa in duqeymihii ugu cuslaa lagu garaacay xarumaha kaydka shidaalka ee dowladda Iiraan dhismooyin badan ayaa gubanaya sidaa oo kalena waxa la bartilmaameedsaday magaalada Xayfa iyo magaalooyin kale oo muhiim u ah dhaqaalaha Israa'iil waxaad moodaa marxaladda labaad ee dagaalka in sidoo kale la iska weerarayo xarumaha dhaqaalaha taasi waxay qasaare ku noqon doontaa dowladaha sidoo kale waxay qasaare ku noqon doontaa guud ahaan gobolka aan ku hormarno khaliijka goobaha la bartilmaameedsaday iyo qasaaraha guud wadamada khaliijka faahfaahin dheeraad ay ka bixiyeen diyaarado drones iyo gantaalo lagu bartilmaameedsaday saacadii la soo dhaafay waxaana moodaa dagaalka inuu marxalad kale uu galay dowladda Bahrain waxay shaacay ka qaaday gantaalada dowladda Iiraan inay ku dhaceen dhismayaal muhiim ah qadar sidaas oo kale Sacuudigana waa uu soo hadlay dalka Bahrain haddii aan ku hormarno wasaaradda gaashaandhigga ee dowladdaasi ayaa sheegtay 3 ruux inay dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii burburka diyaaradaha droneska uu ku dhacay mid ka mid ah dhismayaasha jaamacadaha ku yaala agagaarka deegaanka Muharraq lagu magacaabo sidoo kale waxaa la sheegay in dowladda Iiraan ay bartilmaameedsatay xarumo muhiim ah wasaaraddu waxa intaas ay ku dartay 2 diyaaradood oo drones iyo gantaalo in saacadii ugu dambeeyay lagu bartilmaameedsaday xarumihii muhiimka ahaa iyagoo sheegay in gantaalada nooca cruise ay ahaayeen waxaana inta badan ay ku dhacayeen xarumaha wax soo saarka Sacuudiga markaad eegto 3 diyaaradood oo drones iyo gantaalo ayaa lagu weeraray magaalada Riyadh si gaar ahaaneed waxaa la bartilmaameedsaday sida la sheegay dhismayaal diblomaasiyiin ay ku sugan yihiin inkastoo qasaare aan la diiwaan gelin dowladuna waxay sheegtay inay soo riday diyaaradahaasi 24 saac la soo dhaafay Sacuudiga ayaa sheegay in ka badan 8 diyaaradood oo drones in lagu weeraray magaalada Riyadh oo caasimadda dalka Sacuudiga inta ugu badan bartilmaameedku waa dhismaha saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalka Sacuudiga dalka Kuwait oo kale markaad eegto seeriga digniinta ayaa ilaa waa berigi maanta oo xada laga maqlayay inuu isqabsaday qaybo badan oo kamida magaalada Kuwait City lagu magacaabo ilaa iyo 3 gantaal oo plastiga ayaa Kuwait lagu bartilmaameedsaday maadaama mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan Mareykanka uu ku leeyahay halkaasi waxaa la sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha qaarkood ay gantaale ay ku dhaceen dhismayaal dhaadheer ayaa la arkayay oo dalka Kuwait ku yaala oo gubanaya waxaa sidoo kale la sheegay in Iiraan ay bartilmaameedsatay xarumo kale oo muhiim ah Bahrain oo saldhig Mareykanka ugu weyn uu ku leeyahay marka laga hadlayo dhanka badda sidoo kale gantaale ayaa lagu bartilmaameedsaday Imaaraadka Carabta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay 1 ruux oo Bakistaani ah inuu geeriyooday oo darawal ahaa kadib markii sida la sheegay gaarigiisa burbur uu soo gaaray marka waxaad moodaa xalay mar kale dowladaha khaliijka in gantaalo loo qaybiyay saacado kadib markii madaxweynaha dowladda Iiraan uu bixiyay raaligelin laakiin uu ku hanjabay inay bartilmaameysan doonaan dowladaha khaliijka haddii dhankooda weerar laga soo qaado marka dowladaha Kuwait Sacuudiga Bahrain Imaaraadka iyo Qatar waxay sheegeen dhammaan gantaaladaasi inay ku dhacayaan goobaha dadka rayidka sida daraadeedna qatar weyn ay ku jirto noloshii shacabka marka khaliijka laga yimaado dhanka iyo Israa'iil gantaalo badan ayaa xalay lagu harqiyay waxaana Iiraan ay sheegtay in nooc cusub oo gantaala inay xalay ay adeegsatay inkastoo magacyada ilaa iminka aan la soo bandhigin in Iiraan marka gantaaladaas ay adeegsato waxay ka dambeysay markii xalay si aanan caadi ahayn loo duqeeyay xarumihii kaydka shidaalka ee dowladda Iiraan ilaa waa beriga maantana la arkaya dhismayaal badan oo gubanaya xogaga Xisbullah ayaa dhankooda dagaalka ku soo biiray markaas waxayna gantaale la dhaceen dhammaan deegaanada hareeraha ee Israa'iil magaalada Be'er Sabca Xayfa Tel Aviv iyo magaalooyin kalena gantaalo badan ayaa ku dhacay oo xalay waxay ahayd marka habeen kale oo goobaha shidaalka iyo xarumaha dhaqaalaha la iska bartilmaameysanayay Bahrain oo kale waxay sheegtay in Iiraan ay fulisay weerar aad u xoogan oo lagu bartilmaameysaday warshadda sifaynta biyaha dowladaha khaliijkana inta ugu badan waxay ku tiirsan yihiin sifayn la sifeeyo biyaha dhanka badda tusaale ahaan markaad eegto dowladda Sacuudiga 70% ayay ku tiirsan tahay biyaha la sifeeyo markaad eegto Qatar oo kale 100% ayaa la sheegay in biyahaasi ku tiirsan tahay Bahrain 80 ilaa 90% Cumaan oo kale 86% biyaha la farsameeyo ama la sifeeyo ay aad ugu tiirsan tahay tani marka waxay ka dhigan tahay haddii xarumahaasi beegsiga lagu sii wado in si toos ay arrintan u saameyn doonto nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalka khaliijka oo biyo la'aan ay wajihi karto iyo sidoo kale cunto la'aan maadaama marinka Hormuz uu ka xiran yahay maxaa yeelay 80% cuntada ay isticmaalayeen marinka Hormuz ay inta badan ka soo gudubtaa qasaaraha rasmiga ilaa iminka lama diiwaan gelin meelaha qaarna ilaa iminka holac ayaa ka baxaya maadaama aan lagu guuleysan
dabka in la damiyo. dagaalka marka waxa u muuqanayaa inuu marxalad kale oo cusub uu galay. bal aan kula wadaago maxaa fadeexadda Epstein iyo sidoo kale dagaalkan isku xiray. Israel waxaa la sheegay inay adeegsanayso faylasha la xiriira Jeffrey Epstein si loo sii wado dagaalka ka dhanka dowladda Iran. warbixin cusub ayaa la soo saaray oo lagu eedeynayo madaxweyne Donald Trump in lagu tuhunsan yahay falal galmo oo sharci darro ah oo lala sameeyay caruur aanan qaangaarin intii lagu guda jiray 80meeyadii. dukumeentiyadan marka waxay ka kooban yihiin marqaatiyo iyo baaritaano ay samaysay hay-adda FBI-da ee dowladda Mareykanka. cabashooyin badan ayaa sidoo kale qayb ka ah oo laga soo gudbiyey madaxweyne Donald Trump. warbixinadaasi waxaa ku jira marqaati ay bixisay gabar 13 sano jir ahayd oo madaxweyne Trump ku eedeysay in xilligii 80meeyada uu xadgudub ku sameeyay gabadhan. waxa ay faahfaahin ka bixisay dhacdada. inkastoo faahfaahin buuxda aanan gacanta lagu dhigan oo aanan la faafin, haddana xogay ayaad muddaa marba qayb in laga baahinayo. oo xogtan hadda la baahiyey waxaa la sheegay inay qayb ka tahay in ka badan 3 milyan oo dukumeenti oo horey loo sii keediyey, laakiin si qalad ah ayay inta badan u maqnaayeen oo lama soo bandhigin. marba qayb ayaa laga soo bixinaya. hadda waxaa la isweydiinayaa maxaa fadeexadda Epstein ku xiray dagaalka dalka Iran. qaar ka mid a falanqeeyaasha ayaa waxay shaaci ka qaadeen in Jeffrey Epstein uu si toosa ugu lug leeyahay xaaladda siyaasadeed ee hadda jirta. waxay ku doodaan dadka qaarkii in faylasha Epstein ay ka mid yihiin arrimaha cadaadiska lagu saarayo madaxweyne Donald Trump, taasoo ka mid ah sababa madaxweynaha ku riixaysa inuu sii wado dagaalka ka dhanka dowladda Iran. eedeymahan marka ma ahan kuwa cusub oo waxaa la sheegay Netanyahu in dhowr jeer uu adeegsaday fadeexad dhanka galmada ah si loogu cadaadiyo madaxda dowladda Mareykanka. waxaa tusaale loo soo qaataa Bill Clinton iyo fadeexado hore u dhacay. falanqeeyaal kalena waxay qabaan in Jeffrey Epstein lagu tuhunsan yahay inuu ahaa basaas u shaqaynayay hay-adda sirdoon ee Mossad. sidaa daraaddeed waxaa la leeyahay madaxweyne Trump dukumeentiyo badan ayaa laga hayaa, marba qayb ayaa lasoo fasaxayaa. marka arrintan waxay sabab u noqonaysaa inay galaafato nolosha dad badan, sidoo kalena saameyn ay ku yeelato dowladaha qaliijka. dhinaca kale dowladaha qaliijka miyay isfahmi doonaan qaaradda Yurub iyo Iran? sababtoo ah waxaa lagu waramayaa in xaaladda iyaga ay hadda wajahayaan ay qayb ka tahay burburka iyaga lala damacsan yahay. waxaa la isku dhibsanayaa xisaabaad badan. tusaale ahaan hadalkii wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ka soo yeeray ee ahaa in reer Yurub lagu qasbi doono inay la heshiiyaan madaxweyne Vladimir Putin oo shalay ay go'doominayeen, weerar ku qaadayeen, si kastana ay u aflagaadeynayeen si ay u helaan shidaalka ay u baahan yihiin oo ay dowladaha qaliijka ay ka heli jireen. sidoo kalena marka dowladaha qaliijka waxay dareemayaan in iyagana marxalad kale hadda ay wajahayaan, dhaqaalahoodii la burburinayo, iyagii Iran la iska horkeenayo oo dagaal kale la abuurayo. mana ka maqnaan karayaan dagaalka, mana ku biiri karayaan. oo waxaad moodaa laba daran mid dooro inay haysato dowladaha qaliijka, si hoosena dhaqaalahoodii waa loo baabi'inayaa. marka miyay isfahmi doonaan iyaga iyo reer Yurub iyo sidoo kale Iran, maadaama dhexdooda xaalad adag ay ka taagan tahay oo dhinac saddexaad uu ka faa'iideysanayo khilaafka iyaga u dhexeeyo. sida wargeyska iyo dacwada Axranoth uu baahiyana dhinaca kale waxaa soo baxaya dowladda Iran inay ku hanjabtay in dagaalka ay sii wadi karayso muddo 6 bilood oo hadda dhiman. mas-uuliyiinta dowladda Iran ayaa xalay weerarkii ugu adkaa la kulmay. haddana axadda maanta waxay shaacay ka qaadeen in muddo 6 bilood oo hadda dhiman ay sii dagaalami karayaan, hub badan ay haystaan. waxaa la diiwaan geliyey in saaxiibadooda gobolka oo aan weli dagaalka ku soo biirin sida xuutiyiinta dalka Yemen marka la eego awood ay u leeyihiin inay muddo sii dagaalamaan. Xisbullah waxaa la sheegaa 100,000 oo gantaal inay gacanta ay ku hayso, kuwaasoo xalay ay bilowday si rasmi ah inay u adeegsato. sidaa daraaddeed cabsida la qabo waxay tahay si kasta oo Iiraaniyiinta loo bartilmaameysado inay sii dagaalami karayaan. dhinaca kalena Cali Larajani ayaa markii ugu horeysay laga soo xigtay inay gacanta ay ku dhigeen tiro ka mid ah ciidanka Mareykanka bilowgii dagaalka. waxaa la rumaysan yahay in qaar ka mid ah diyaaradihii dagaal ee dowladda Iran ay soo riday inay shakhsiyaadkii la socday gacanta ay ku dhigeen. macluumaadkan waxaa Cali Larajani uu ku soo beegay iyadoo xalay madaxweyne Trump uu ka qayb galay aaska 6 askari oo Amerikaana kuwaas oo Iran ay ku dishay dagaalka ka soconaya bariga dhexe. dhinaca kale dowladda Shiinaha waxay hadda ka fikiraysaa inay qaadato door dhexdhexaadina maadaama dagaalkan iyagaba saameyn weyn uu ku yeelanayo, sidoo kalena saaxiibkoodii gobolka bariga dhexe muddo 7 ah duqeyn lagu hayo. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha Wang Yi ayaa maanta oo axada waxa uu shaacu ka qaaday dowladda Shiinaha in ay ka shaqayn doonto sidii heshiis dhexdhexaadina loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada dagaalamaya. waxay sidoo kale ay cambaareeyeen xadgudubka madax banaanida dowladda Iran
iyo bartilmaameysiga la bartilmaameysanayo xarumaha shidaalka iyo xarumaha tamarta ee dalkaasi. dagaalkana waxa uu galay maalintii 9aad. xaaladu aad bay u adag tahay. dhinaca kalena wargeyska Washington Post ayaa daabacay warbixin ciwaan looga dhigay kooxda madaxweyne Trump oo muddo sanada qaaradda Yurub aflagaadeynaysa waxay iminka ka dooganayaan taageero aad u xoogan, si gaar ahaaneed Ingiriiska oo la rumaysan yahay dowladaha kale ee qaaradda Yurub sida weerarka ugu xoogan ee madaxweyne Trump ay kala kulmayeen muddadii sanadkii la soo dhaafo dagaalka Ukraine uu socdo. hadda waxa uu ka doonayaa taageero military oo aad u xoogan. madaxweynaha dowladda Iiraan ayaa goordhow waxa uu shaaca ka qaaday in ay ka jawaabi doonaan weerar kasta oo ka yimaada cadowga oo kala jeeda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyo Mareykankana waxay ka fikirayaan suuragalnimada weerar dhanka dhulka ah oo Iiraan lagu qaado. xukuumadda Iiraan waxay shaaci ka qaaday in hoos loo dhigi doono isticmaalka shidaalka, halka maalintii laga isticmaali jiray meelaha qaar 30 litir waxaa la sheegay hadda dadka inay isticmaali doonaan ilaa 20 litir. gudoomiyaha magaalada Tehran ayaa ku dhawaaqay in la dhimay saamiga shidaalka ee kaarka shakhsiga laga bilaabo 30 litir, laakiin waxaa la gaarsiinayaa baa layiri ilaa 20 litir. Israa'iil waxay sheegtay ku dhawaad 2,000 oo ruux inay ku dhaawacmeen dagaalkii soo bilowday toddobaadkii hore, waxaana la sheegay in la geeyay xarumaha caafimaadka. wararka kale ee soo kordhay haddii aan eegno dhawaaqa qaraxyo xoogan ayaa laga maqlayaa magaalada Tehran, sidaas oo kale dhawaaqa qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay dhanka iyo magaalada Tel Aviv. safiirka dowladda Ruushka ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay inay taageerayaan madax bannaanida xukuumadda Iiraan. Iiraanna waxay sheegtay inay nafsadeeda difaaci doonto haddii Ingiriiska uu ku soo biro dagaalka. si lamida sida ay hadda ula dagaalamayaan Mareykanka iyo Israa'iilna waxay sheegeen inay bartilmaameysan doonaan xarumo dhowra. sidoo kale waxaa soo baxaya in Mareykanka saldhigiisii uu ku lahaa dalka Kuwait goordhow la bartilmaameysaday oo gantaale iyo diyaarado daroonisa ayaa lagu waramayaa in lagu garaacay. xaaladdu way adagtahay, wax walba oo soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah.